Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aasiya waa qaaradda ugu dhulka weyn caalamka uguna dadka badan. Waxay hoy u tahay wadamada sida Ruushka oo ah wadanka ugu dhulka weyn caalamka, iyo Shiinaha oo ah wadanka ugu dadka badan dunida. Aasiya waa tan ugu weyn qaaradaha adduunka, qiyaastii 30% ayay ka tahay dadka dunida. Sidoo kale waa qaaradda adduunka ugu dadka badan, qiyaastii 60% ayay ka tahay tirada guud ee dadka ku nool dunida. Aasiya waa halka ay ka bilowdeen diimaha maanta ugu waaweyn sida Islaamka iyo Kirishtiyaanitiga ama Masiixiyadda. Aasiya waqooyiga waxaa ka xiga badweynta Arctic, badweynta Pacificana dhanka bari, koonfurtana waxaa xuduud kala leh badweynta Hindiya, Yurubna dhanka galbeed. Aasiya waxay leedahay meelaha ugu sarreeya iyo kuwa ugu hooseeya ee dusha sare ee dunida. Waxaa ka jira cimilo aad u kala duwan, sidaa darteedna waxay soo saartaa noocyada kala duwan ee dhirta iyo xayawaanada ee dunida. Intaa waxaa dheer, dhaqamada ka jira qaaradda aad bay u kala duwan yihiin. Ku soo dhawaada xaqiiqooyin ku saabsan qaaradda Aasiya. Aasiya waxaa ku yaala 49 dal, 5 ka mid ahna waa dalalka gudba qaaradaha, sida Turkiga, Ruushka, Azerbaijan iyo kuwa kale. In ka badan 4.4 bilyan oo qof ayaa ku nool qaaradda, taasoo ka dhigaysa qaaradda ugu dadka badan. Wadanka ugu badka weyn qaaradda Aasiya waa Ruushka, inkastoo 25% dhulka dalka Ruushka ay ku yaalaan qaaradda Yurub. Shiinaha waa dalka ugu dadka badan adduunka oo dhan. Ma og tahay in dadka ku nool Shiinaha ay ka badan yihiin marka la isku daro saddexdan qaaradood: Australia, North America oo laga wado Ameerikada Waqooyi, South America oo laga wado Ameerikada Koonfureed. Wadanka ugu yar qaaradda Aasiya waa Maldives, sidoo kale waa mid ka mid ah wadamada adduunka ugu yar. Aasiya waxaa ku yaala 12 dal oo aan bad lahayn. Wadamadaas aan badka lahaynna waxaa ka mid ah Bhutan, Nepal, Mongolia, kuwaas oo ku yaala gudaha qaaradda. Singapore waa wadan yar oo ka mid ah wadamada ugu qanisan, ugu casrisan, uguna saameynta badan qaaradda Aasiya. Singapore waa wadan ku hogaamiya tiknoolajiyad casri ah iyo hal-abuur, waana xarun maaliyadeed oo weyn. Dhismaha adduunka ugu dheer waxaa laga heli karaa galbeedka qaaradda Aasiya ama Bariga Dhexe, halka dadka qaar ay u haystaan Bariga Dhexe inuu yahay qaarad gaar ah, haddana waxay ka tirsan tahay qaaradda Aasiya. Ku dhawaad 90% bariiska adduunka waxaa laga cunaa wadamada Aasiya. Bariisku waa cunno muhiim u ah qaaradda. Inta badan bariiska la soo saarayna halka ayaa lagu cunaa. Aasiyaanku waxay cunaan 90% wadarta wax soo saarka adduunka ee bariiska. Ruushka, Shiinaha, Hindiya ayaa ah militariga ugu awooda badan qaaradda Aasiya. Aasiya waxay leedahay dhaqaalaha ugu weyn ee qaaradaha adduunka. Khayraadka dabiiciga ah ee Aasiya waxaa ka mid ah macdanta. Sidoo kale wadamada Carabta waxay hodan ku yihiin shidaalka, maadaama ay leeyihiin kaydka ugu badan adduunka ee gaaska dabiiciga ah iyo saliidda. Sacuudi Carabiya waa mid ka mid ah wadamada ugu soo saarka badan saliidda adduunka. Bhutan waa wadanka keliya adduunka ee mamnuucay tubaakada, isla markaana haysashada ama iibinta tubaakada ay dembi ka tahay dalka Bhutan. Qaaradda Aasiya waxay leedahay cimilo aad u kala duwan, oo u dhexeeya cimilada Arctic ee Siberia, mid ka mid ah meelaha ugu qabow dhulka, ilaa cimilada kuleylka ee koonfur bari Aasiya. Qaar ka mid ah wadamada Aasiya waxay halis ugu jiraan saameynta xun ee isbeddelka cimilada. Dadka Aasiya waxaa ku nool qowmiyado badan. Aasiya waa qaarad aad u weyn, waxaana ka jira dhaqamo kala duwan. Hindiya iyo Shiinaha, wadamada ugu dadka badan Aasiya, waxaa ku nool qowmiyado badan oo kala duwan oo dhammaantood leh af iyo dhaqan u gaar ah. Ka soo qaad dalka Hindiya. Hindiya oo keliya, in ka badan 100 luqadood oo kala duwan ayaa loogu hadlaa, loona adeegsadaa wadahadalka maalinlaha ah. Sidoo kale qaaradda waxaa ku nool Carabta, Ruushyaanka, Kuuriya, Jabaan, Hindiya, Indonesia iyo koox dhaqameed badan oo kala duwan. Luqadda Aasiya. Aasiya in ka badan 2300 oo luqadood ayaa la aqoonsan yahay. Luqadda ugu badan ee lagu hadlana waa luqadda Jeenayska ay ku hadlaan.
Sidoo kale, qaaradda waxaa lagu hadlaa Ingiriis, Carabi, iyo luqado kala duwan. In ka badan 1,600 luqadood ayaa kaligood ka jira Hindiya. Dalka Indonesia-na waxaa loogu hadlaa boqolaal luqadood, Filibiinna in ka badan 100 luqadood.